sababtoo dadka hadda dabadaha hadda maanta aan joogno lacagaha ka dirhaya waxaa dhici kadha inay diraan $50, waxaa dhici kadha inay diraan $100, oo waxaa laga doonahayo oo zakaatulfidriga cunno ahaan markii la eego aysan ka badnayn $20 ama $10. marka labada waa isku oofsan kadhaayo qofka lacagta aad u dirayso ehelkaa waxaad tidhaahdaa cunnadii iga bixi lacagta inteedaba inta kala qaado. سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا وحن كجرنا بشي رمضان مبارك هيدو لبركيي ولبا هذا وحن مرينا tobankii dhexe gudihiisa ayaan ku jiraa. waxaan jecel lahay inaan hadda kaga hadalno waxa la yidhaahdo zakaatulfidri. bisha ramadaan haddii ay dhammaato qofka muslimkaa waxaa laga doonahayaa inuu bixiyo zake la yidhaahdo zakaatulfidri. zakadaas marka magacyo badan bay leedahay. zakaatulfidri waa la yidhaahdaa oo macnaheedu uu yahay zakada afurka. waxaa kaloo loo yaqaanaa oo la yidhaahdaa zakaatulfitra, macnaheedu ay tahay uumista zakadeedii. waa zake qofku jirkiisa uu ka bixinhayo oo badankiisa uu ka bixinhayo, oo iyadu ma aha wax maal laga bixinhayo ma aha. waxaa kaloo zakadaa loo yaqaanaa zakaatu ramadaanna waa la yidhaahdaa. bisha ramadaan zakadeediina waa la yidhaahdaa, sida yacni uu tusinahayo xadiidkii abuu hureyre bukhaariya rag kaleba ay ka wariyeen uu lahaa wakalanii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama bixifdi zakaati ramadaan. ilaahay rasuulkiisu wuxuu ii wakiishay bisha ramadaan zakadeeda inaan ilaaliyo, oo zakada waa lasoo uruurin jiray oo dadkii zakada lagu soo uruurin jiray hawshaa loo diri jiray ayuu ka mid ahaa. shaygaas marka zakada lagu magacaabo waa shay waajib ah. wujuubkiisu marka waa uu sugnaaday oo qur-aanka iyo sunnada nebiga labadaba waa uu ku sugnaaday. qur-aanka si guud ahaan waxaa la yidhaahdaa haddee aayaadka tusinahaya zakada ayay zakadaani ka mid tahay. ilaahay markii qur-aanka in badan uu ku leeyahay wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa, salaada ooga zakadana siiya dadka mutay. zakadaa marka la sheegahaya iyada laftigeedu waa ka mid oo waa qeyb ka mid ah, oo way kulminaysaa zakada maalka laga bixinhayo iyo midda badanka laga bixinhayo. daliil gaar ee kusoo aroorana waa la wariyaa oo xaafidka ibnu khuseyme la yidhaahdee muxadisiinta macruufka ka mid ah. kitaabkiisa wuxuu ku warinahayaa xadiid ahaa su-ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can haadihi alaaya qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa faqaala nazalat fi zakaati alfidri. xadiidka ibnu khuseyma wuxuu tusinahayaa oo uu sheegahayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in la weydiiyey aayadatan. aayaddaasi waa aayadda hadda yacni aan ku furannay muxaadaradan zakaatulfidriga ku saabsan, oo nabiga waxaa la weydiiyey aayadda ilaahay uu ku leeyahay qad aflaxa man tazakaa, waxaa liibaanay qofkii isdahiray baa liibaanay, wadakara sma rabbihi fasallaa, magaca ilaahayna sheegay ee markaa tukaday. nabigu markaa wuxuu ku jawaabo uu yidhi nazalat fi zakaati alfidri. aayaddaasi waxay kusoo degtay zakada oo zakaatulfidriga la yidhaahde zakada afurka la yidhaahdo, oo bisha ramadaan marka laga afuro qofka waajib ay ku noqonaysa inuu la yimaado. marka aayadda macnaheedu markaa wuxuu noqonahayaa markii sidaa lagu fasiro qad aflaxa man tazakaa ay man tatahara biikhraaji zakaati alfidri, waxaa guulaystay buu ilaahay leeyahy oo liibaanay
qofkii naftiisa nadiifiyey ee markaa ku nadiifiyey zakada sakaatulfidriga la yidhaahdo inuu bixiyo kaas ayaa liibaanay oo guulaystay buu ilaahay yidhi. wadakara sma rabbihi sheegay magaca rabbigii oo magaca ilaahay oo laga warramahayaa markaa muxuu noqonahayaa waa salaadii marka ciidulfidrigii oo macnaha allahu akbar yidhi wadakara sma rabbihi fasalla ee markaa salaada tukaday. aayaddu macnaheedu markaa wuxuu noqonahayaa waxa ay ka hadlaysaa inay noqoto zakada sakaatulfidriga la yidhaahdo oo ramadaanka gadaashiisa lala imaanahayo oo maalintaa ciidda la rabo qofku inuu bixiyo waana laga hormarin karaa ilaa ramadaanka dhexdiisii, iyo salaadaa salaatu ciidilfidri la yidhaahdo oo maalintaa la tukanayo. marka shayga sakaatulfidriga haddii la eego nabigu calayhi salaatu wasalaam asaguna wuu ka waramay waajibnimadeedii baa nabigu uu ka waramay oo xadiid bukhaari iyo muslim iyo asxaabu sunanku ay wariyeen oo cabdullaahi bnu cumar laga wariyey baa wuxuu ahaa nabigu inuu cabdullaahi yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxori waaldakari waalunhaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin. waxaa xadiidkaas oo cabdullaahi bnu cumar uu ku leeyahay ilaahay rasuulkiisu wuxuu waajib ka dhigay zakada sakaatulfidriga la yidhaahda ayuu nebigu waajib ka dhigay. marka uu leeyahay nebiga ayaa waajib ka dhigay macnihiisa ugama jeedo wax nebigu xaggiisa uu kala yimid inay tahay. qur-aanka waa tii ilaahay uu ku lahaa wamaa yantiqu cani ilhawaa ilaa huwa waxyun yuuxaa. nebi moxamed yacni hadli mahayo oo ka hadli mahaya hawaa u nafs. waxa nebi moxamed uu sheegahaya ma aha wax naftiisu ay jeclaysatay ama asaga iskala qumanaaday, ee waxa nebigu uu ku hadlahayaa waa waxyi loo waxyooday weeye. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u waxyooday zakada sakaatulfidriga la yidhaahdo wujuubkeedii. sidaasaa marka nebigu ummadda u sheegay oo wuxuu sheegay zakadaasi inay waajib tahay. weliba waxaa lagu sheegaa sida yacni mashhuurka ah marka la waajibiyey inay ahayd sanadkii 2 oo hijrada, weliba waxay ahayd isla sanadkii bisha ramadaan la yidhaahdo dhexdiisa lagu waajibiyey. markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bn cumar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisu zakadaas oo sakaatulfidriga la yidhaahdo waajib baa nebigu ka dhigo. nebigu waxuu ku waajibiyey zakadaas sakaatulfidriga la yidhaahdo ayaa nebigu waajibiyey. muxuuna nebigu waajibiyey wuxuu nebigu waajibiyey buri saac, waxaan suuska loo yaqaano ama qursiga soomaalidu ay u taqaano waa 4 madaalo weeye ama 4 shood weeye. wuxuuna waajib ku yahay baa nebigu yidhi addoonkii laftigiisa waa laga rabaa oo sayidkiisa baa bixinaya. qofka yacni xorkaa waa laga rabaa, labkii baa laga rabaa, unfihii baa laga rabaa. intaasoo dhan nebigu waa ku waajibiyey. qofka yar iyo qofka weyn nebigu waa ku waajibiyey. qofka yarna hadda waxaa ka bixinahaya qofkii weynaaya isaga mas-uuliyaddiisa hayay ayaa ka bixinaya. marka sidaas ayaa nebigu wuxuu u caddeeyey shaygaas oo sakaatulfidriga la yidhaahdaa inuu yahay waa shay waajiba inuu yahay. marka ha la waajibiye zakada, laakiin xikmadda ku sugan oo markaa loo waajibiye maxay tahay ayada laftigeeda axaadiid kale ayaa ka waramaysa. oo xadiid uu warinahayo muxadidka la yidhaahdo abu daawuud inuu ahaan u malaynahayo, adugu ibnu maajah sunanka qaarkii baa warinahayay, iyo muxadidka xaakimka la yidhaahdo. rag muxadisiina xadiid ay wariyeen oo cabdullaahi ibnu cabaas ay ka wariyeen ayaa maxaa ku sugnaa? waxaa ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yacni yidhi shaygaas oo sakaatulfidriga la yidhaahdo yacni in ilaahay uu ka dhigay markaa laga yeelay duhratan lisaa'im. oo weliba markuu ka cabirhayo wuxuu leeyahay farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri duhratan lisaa'imi min allaqwi waalrafathi wa ducmatan lilmasaakiin. ilaahay rasuulkiisu wuxuu waajibiyey buu yihi zakada sakaatulfidriga la yidhaahdo waajibiyey. sababka marka yacni loo waajibiyey waxa weeye qofka saa'imka ah
ayay waxay ka dahiraysaa ee ka nadiifinaysaa hadalka laaqiga ah iyo warka xun oo intii u soomanaa ka dhacay, waxayna yacni quud u tahay dadka masaakiintaabay quud u tahay. markii hadda nebigu xadiidkaa kaga waramay wuxuu sheegay zakada zakaatulfidriga la yidhaahdo waajibinta la waajibiyey, waxaa loo waajibiyey inay tahay 2 xikmo. ilaa waxyaalaha ilaahay uu samaynahayo waxaa loo sameeyaa xikmo ahaan, oo wax ilaahay cabas iyo cayaar u sameeyaa ma jidho. xikmadda markay yacni ku jidha 2 xikmaa nebigu sheegay. mid waxa weeye sadaqadaani waxay yacni nadiifinaysaa qofkii saa'imka ahaabay nadiifinaysaayo xumaantii iyo waxyaalihii dembiyada ahaa ee intii soomanaa gudaheeda uga dhacay, intuu soomanaa soomka dhexdiisa uga dhacay, kaas bay ka nadiifinaysaa. sha'nigaasina marka waa sha'niga sakadoo dhanba lagu yaqaano, oo ilaahay aayaduu ku lahaa markii uu ka warramahayey sakada xoolaha laga qaadahayo, khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha. ilaahay uu lahaa xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqo yacni aada ku dahirayso oo dembigooda aada uga nadiifinayso. iyaduna marka macnaha guud oo sakada yacni maalku ay lahayd bay middan laftigeedu la wadaagtaa, oo qofkaa saa'imka ah waa lagu nadiifinahayaayo xumaantii laqwigii iyo hadalkii xumaa ee soomka gudihiisa uga dhacay baa looga nadiifinaya. xikmadda labaad nebigu wuxuu ku sheegay inay tahay tucma lilmasaakiin. macnaha waxaa nebigu u waajib yeelay buu saxaabigu yihi cabdullaahi bnu cabbaas, macnaha quud bay waxay u tahay dadka masaakiinta ah. taana xikmadda ku sugani waxaa weeye maalintaas oo ciidda ah oo sakadan in la bixiyo la waajibiyey, waa maalin dadka muslimiinta faysta u ah, waa maalin dadku ay soo baxahayaan, waa maalin dhar qurxoon ay soo qaadanhayaan, waa maalin ay faraxsan yihiin, waa maalin cunno ay cunahayaan, waa maalin dadka yacni waxhaystaay waxyaalo fiican oo aada u wanaagsan ay samaysanhayaan. marka waxaa la rabaa dadka masaakiinta ahi inaanay maalintaa qalbi jabinin, oo ayaga laftigoodu faraxa ay qeyb ka noqdaan. sidaa daraaddeed ayaa loo jideeyey. marka bacdul axaadiis waxaa ku soo arooray nebigu inuu yidhi markuu sakaatulfidriga uu ka hadlahayey, aqnuuhum cani talabi fii hada alyowm. masaakiinta waxaad ka deeqdaan buu yidhi inay wax raadiyaan, ilaa masaakiinta waxaa lagu yaqaanaa baryo iyo si un dhibay wax ku raadiyaan quudkeeda maalintaa inay wax raadiyaan ka deeqa, oo qof walba gurigiisa ugu geeyo isagoo maalintii wixii cuni lahaa haysta ee markaa yacni faraxsan ciiddaha ka qeyb qaato. marka waxaa kaloo haddana shaygaas oo sakaatulfidriga la yidhaahdee la waajibiyey oo waajibka laga dhigay, waajibkaasi marka waajib muhiimad weynan badan ku fadhiyo wey. muhiimadda uu ku fadhiyaa waxa weeye soomkii awal adugu aada soomtay qabuulkiisi baa ku xiran. haddii sakada sakaatulfidriga la yidhaahdaa intay waajib kugu tahay aadan bixinin, soomkaaguma noqonahayo soom maqbuul oo la aqbalay. taana waxaa tusinahaya xaafidka ibnu shaahiin la yidhaahdo, nin xufaadda wuxuu ka mid ahaa macruufka ee la yaqaanay, ee weliba qarnigii 4aad buu joogay. kitaab asagu uu iska leeyahay oo fadaa'ilu ramadaan la yidhaahdo. kitaabkaas wuxuu kaga warinayaa saxaabiga jariir ibnu cabdillaahi albajaliyi la yidhaahdo. saxaabigaasi nebiga inuu ka sheegay uu yidhi, nebigu wuxuu yidhi, shahru ramadaan mucallaqun bayna alsamaa'i waalardi laa yurfacu walaa yurfacu ilaa bisakaati lfidri. waxaa nebigu yidhi buu yidhi jariir ibnu cabdillaahi, bisha ramadaan la yidhaahdaa waa bil yacni laalaada oo cirka iyo dhulka meel u dhaxaysa ayay ka laalaadaa. sare loo qaadi mahayaa yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, oo dhanka samada loo dhigi mahayo. acmaasha marka la aqbalo meesha la geeyo loo dhigi mahayo. ila ilaahay qur-aanka markuu ka warramahayey camalka yacni wanaagsan oo aqbalahaya waatuu lahaa, ilayhi yascadu lkalimu tayibu waalcamalu saalixu yarfacu. ilaahay xaggiisa ayaa hadalka wanaagsani uu u koraa, camalka wanaagsanna ilaahay sare ayuu u qaadaa. marka amkinadan wanaagsan oo dadka ilaahay dembiyada uu ka dahiray ay joogaan oo malaa'igtu ayaa acmaasha la geeyaa, calaa ciliyiin baa la geeyaa. marka camalkaa qofku uu la yimid oo bisha ramadaan ilaa sakaatulfidriga laga bixiyo, camalkaasi marka wuxuu noqonayaa camal cirka iyo dhulka in udhaxaysa
ku xayiran buu noqonahayaa laalaada. waxaa marka sare loo qaadahayaa oo jaa-isadiisii markaa la helahayaa uu ku fulahayaa haddii zakaatulfidriga la bixiyo. weliba xaafidka ibnu shaahiin xadiidkaa markuu wariyey markuu ka waramahayay gadaashiisa wuxuu yidhi gariibun jayid lisnaadi buu yidhi. xadiidkani waa xadiid gariib uu yidhi oo hadda riwaayaad badan xadiid kusoo arooray ma aha, laakiin sanadkiisu waa uu wanaagsan yahay oo sanadkiisu inuu yahay sanad haabita inuu yahay ayuu markaa tusiyey. marka sidaa daraaddeed shaygaas oo zakaatulfidriga lagu magacaabo waa shayga nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay inuu waajib yahay. maxaa marka laga doonayaa qofka waxaa la rabaa hadduu awood leeyahay naftiisa inuu ka bixiyaa waajib ku noqonaysa, xaaskiisa inuu ka bixiyaa waajib ku ah, ilmihiisa yaryar inuu ka bixiyaa waajib ku ah, waalidkii inuu ka bixiyaa waajib bay ku noqonaysaa laftigeeda haddii hadda aanay nafaqadoodu ay saaran tahay. adiga waxaa lagu xadeeyaayoo la yidhaahdaa qof alla qofkii adiga nafaqadiisu ay waajib kugu tahay inaad bixiso zakaatulfidrigiisu waajib buu kugu noqonay. laakiin dadka nafaqadoodu aanay waajib ahayn guud ahaan qaraabo xidhiidis way leeyihiin oo sida hadda walaalaha iyo adeerada iyo waxyaalaha lamidka abtiyaasha iyo habaryaraha iyo haddaad rabtaba adigu nafaqe ama gurigaaga ha joogeen kuwaa zakaatulfidrigooda adiga kuma saara. laakiin waxyaalaha usuusha asalka adigu aad kasoo jeedo ama adiga faracaaga kuwaas waa lagaa doonayaa ilmuhu hadday yaryar yihiin. laakiin ilmuhu mar haddii ay qaangaaraan markaa zakadooda waajib kugu noqon mayso. walowba gabdhaha laftigooda ay culummada qaar kasoo reebaan oo ay leeyihiin gabadhu haba qaangaartee haddii guriga ay joogto oo markaa yacni guuriya midna aanay gelin aysan reerkii ka maarmin waxay ka mid tahay dadka yacni nafaqadoodu markaa waajib ay noqonayso ayay ka mid tahay. waayahay marka shaygaas oo marka zakaatulfidriga la yidhaahdo oo dadka yacni waajib ku ah in la bixiyo maxaa marka lagu bixinaya? zakaatulfidrigaas maxaa lagu bixinaya? xadiidkii hadda aan soo qaadaynay saacan min tamrin aw saacan min shaciirin, nabigu xadiidkaa wuxuu kusoo qaaday bukhaari iyo muslim saac timira saac shaciira. riwaayo kale bukhaari iyo muslim ay wariyeen saacan min طacaamin saac cunno ah, saacan min tamrin, saacan min shaciirin, saacan min zabiibin. aqidna nabigu yacni waa uu sheegay suus oo cunno ah. cunnadaa marka haddii cunooyin kale lasoo qaaday culummadu yacni way ku fasiraan in markaa burka looga jeeday waak ilaa carabtu burka dacaan bay isaga idlaaqi jireen, ama waaba noqonahayaa kelimo cunoo dhanba ku dhacda oo kuwan damba markaa yacni ay iska noqdaan waxyaalaha la yidhaahda min cadfil khaasi cala alcaam. sidoo kale nabigu wuxuu soo qaada timir, wuxuu soo qaada bahal shaciir la yidhaahdo garbe ayaa soomaalidu u taqaanaayo galbeedkaasaa laga isticmaalaa, waa wax sareenka u dhow. wuxuu nabigu soo qaada zabiib, wuxuu nabigu soo qaada aqid waxa la yidhaahdo oo caano fadhiyo weeye. waxaa oo dhanba culummadu waxay sheegeen waxyaalahan xubuubta ah ilaa caanaha maahane kulligood nuuc walba ay yihiin zakadu way ku baxdaa zakaatulfidrigu. caanaha haddii la eegana isla xadiidkaa caddeeyey caanahana zakada waa lagu bixin karaa, ama ha noqdo caanaha fadhiya ama caanahan kaleba ha noqdo. laakiin waxaa shardi noqonaya qofka yacni caanaha ku bixinaya inay dadkaasi yacni ay yihiin dad yacni quutulqaalibkooda uu caano yahay. markii quutulqaalibkoodu marka caano uu yahay dabcan sida baadiyaha dhacdo oo kale hadday waxay quudaystaan markaa caano ay u badan yihiin caanaha zakaatulfidriga laftigooda waa ku bixin karaa. waayahay marka sidaa haddii ay soo aroortay ma lagu bixin karaa marka shaygaa zakaatulfidriga la yidhaahdo lacag ma lagu bixin karaa? waa masale loo baahan yahay in la isweydiiyo. waxa weeye culummada islaamka mucdamkoodu waxay qabaan zakadaas oo zakaatulfidriga la yidhaahdo wax qiimo la yidhaahda inaan lagu bixin karin. maxaa yeele waxay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam cunuu sheeg hadda waxaa meesha ku jidha haddana nabiga waktigiisi lacagi waa jidha oo waxaa jidhay lacag midda annagu aan haysana ka fiican oo lacag dinaar la yidhaahdo dahabaa jiray, lacag daraahim la yidhaahdo qalina ayaa jidhay. nabigu marka ma uusan sheegin, nabigu wuxuu sheega cunaduna sideeda asal ahaan haddii la eego marka horeba haddii la bixinahayo lacagta way ka fadli badanta. maxaa yeele xadiidkii saxiixa waa tii ku sugnaa nabiga marka la yidhi ayu lislaami khayrun qaala an tutcima aطacaama wa taqra'a asalaama calaa man carafta waman lam tacrif. nabiga waxaa la yidhi
waxyaalaha khisaasha islaamka axwaasha islaamku yacni uu la yimid maxaa u khayr badan nebigu wuxuu yidhi waxaa u khayr badan inaad cunno bixiso iyo inaad qofaad taqaan iyo qofaadan aqoonin labadaba adsanaan marka nebigu markuu lahaa inaad cunno bixiso hadda lacagi waa jidhe ma uusan oran inaad lacag bixiso faa-iidada marka meesha ku jidhaa waxaa weeye cunnada markii la eego cunnadu qofka binu aadamka ahi ama waxa noolaha ahi waxa noloshoodu ay ku taagan tahay waa cunnada waa wax uusan ka maarmi karin maanta haddii aada haysato gurigan oo dollar uu ka buuxo wax cunnaana aadan haynin iyo wax aad dollarka uga gadanaysaa waa baktiyaysa waa ku agbaktiyaysaa adoo dollarkii dhex hurda laakiin wax yaroo badara haddii aada haysato beriisa ama timira maalintaa waa noolaanaysaa oo kale marka waxa weeye lacagta waxtarkeedu waa waasido lacagtu wax kugu tari karnaa inaad wax kale ku gaarto laakiin waxtarka cunnadu waa toos marka sidaa daraaddeed nebigu cunuu sheegay ayadoo marka culummadu taa ay ilaalinhayaan waxay u badan yihiin weliba 3 madhab ee madhabka shaaficiyada iyo midka maalikiyada iyo midka xanaabilada 3duba waxay qabaan inaan lagu bixin karin lacag waxa kaliya qaba in qiimo lagu bixin karo daraahim iyo wixii la raba lagu bixin karo waa madhabka Abu Xaniif weliba madhabkaasi waxa daliila oo u hayaa majid waxay kaliya soo qaadaan qiyaasaad culimadu ay ka jawaabay leeyihiin loogama qiyaas qaadan karo qiyaasaadkaasina sax ma aha qiyaasaadkaasina sax ma aha waxyaalaha xataa ay soo qaadaan waxaa ka mid ah khabar xaafidka bukhaari la yidhaahdo oo bukhaarigiisa kusoo qaaday oo saxaabiga Mucaad ibnu Jabal la yidhaahdo dad zaka uu ka qaadahayay Yaman markii loo diray uu yidhi dhar keena oo meeshaad masagada iyo garbaha aad keeni lahaydeen dhar baan idinka qaadahaya oo weliba Taawus ayaa warkaa sheegahaya Mucaad ka sheegahaya bukhaari wuu soo qaadaa masalada laakiin markay ka waramaan shuraxda laftigeedu waxay leeyahay xadiidka xadiid saxiixa ma aha sababtoo ah Taawus Mucaad waxba kama maqlin bukhaari laftigiisuna sanad ku warin maayo wuxuu warinayaa Taawus baa wuxuu yiri buu leeyahay Mucaad wuxuu yiri oo markaa wuxuu ku warinayaa waxa la yiraahdaa siiqatu tacliiq marka kaas iyo waxyaalo kale oo qiyaasaad oo ah nabigu markuu ka waramahay masalan zakada haddii 25 geelu markuu gaaray nabigu yiri bintu makhaad baa laga bixinaya haddii qofku bintul makhaad uusan haysanna ibnu labuun marka taas oo kale waa soo qaada iyadana hadda waxa la yiraahdaa ibnu labuun laftigiisu hadde labada shay waa laba shay oo nabigu sheegay haddii ka la waayo ka la bixiyaa nabigu yiri maahane nabigu qiimeyn kama hadlin wax qiime la yiraahdo taqwiim nabigu ma uusan soo qaadin waxyaalo noocaas oo culimadu ay ka jawaabeen oo waxa loo daliisanayo haddii la eego wax bayin aan ku ahayn ayay soo qaadaan sidaa marka darteed culimadu waxay leeyihiin oo badankoodu ay qabaan inaan la bixin karin imaamu shaafici uu ku soo qaadaa ummigiisa kitaabkan kitaabul ummi lagu magacaabo imaamu maalik kitaabka mudawana la yiraahdo markuu arrintaa ka hadlayay ayuu wuxuu yiri qofku inuu zakada zakaatul fidriga la yiraahdo booskeeda inuu badeeco bixiya u gudi mayso muxuu daba dhigay walaysa kama amara an-nabiy bihi arrintaani ma ahan buu yiri nabigu sidoo amray nabigu wuxuu yiri buu yiri saaxa la bixiyo nabigu cunuu sheegay buu sidoo kale ninka yaani faqiiha ah ee waliba muhaddithna waa uu yahay la yiraahdo ibnu Qudaama oo xanaabilada kamid ah kitaab wuxuu iska leeyahay al-Mughni la yiraahdo kitaabkaasi marka wuxuu u xisaaban yahay qolada xanaabilada meesha shaaficiyada kitaabka majmuuc la yiraahdo imaam Nawawi leeyahay kala booskaas oo kale u jooga oo wuxuu ka warrabaa masalan masalooyinka adiladoodii iyo fuqahada kale waxay qabaan asaguna uu soo qaadanayaa in qiima aanay u gudayn madhabka yaani imaam Ahmed ibn Hanbal nawasida waliba wuxuu sheegayaa oo ka soo naqlinayaa muhaddithka Abu Daawud la yiraahdo ayaa wuxuu yiri buu yiri qila li Ahmad wa ana asma'u qila li Ahmad wa ana asma'u u'di darahima يعني في صدقة الفطر فقال أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله وحيري إمامك أبو داود ليلة هذا وحيري بويري إمام أحمد باوحا لو يري بويري أنا قوى مقلها هي نمبا يري دراهم مبحية معناها أسوأ أجيدة زكاة الفطر قال مركان بحينها هيو دراهم مبحية مركان سوح أقول جوابي بويري waxaan ka cabsanayaa inay salmidaasi ku gudin
khilaafu sunnati rasul sababtuna waxaa weeye sunnada nebigay khilaafsan tahay nebigu lacag ma uusan sheegin weliba isagoo jasminahayana masalada waa u jawaaba madhabkiisu sidaasuu marka qabaa saddexdaas marka madhab sidaasay ku tageen abu xaniife keliya ayaa wuxuu qabaa in qiimo ahaan la bixinayo ayuu qabaa bukhaari laftigiisuna culummadu waxay ku sheegaan inuu ka mid yahay walowba isagu markaa zakaatulfidriga uusan gaar uga hadlayn laakiin markuu xadiidka iyo soo qaadahayay in zakada qiimo lagu bixin karo weliba zakada caadigaa oo dhan buu ka hadlahayo midaana kama bedelna weliba markay shuraaxdu ka hadlahayaan waxay yidhaahdaan bukhaari masale xanafiyada uu ku waafaqay midaasaa laga arkaa baa la yidhahdaa isagoo weliba lagu yaqaano inuu inta badan xanafiyada khilaafo oo masaa-ishooda uu ku khilaafo maxaa yeelay haddee inta badan isagu wuxuu u badan yahay adilada markii la eego adiladaa waadixa inuu raaco xanafiyada laftigoodan inay daliil la-yihiin ma aha laakiin waa niman laftigoodu balaayaayoo meelo badan bay fiirfiiriyaan oo caray ka wareegaan oo qiyaasaadkii aada u isticmaalaan way marka sidaa daraaddeed waa jidhaa in mathalan abu xaniifa uu qabay waa jidhaa salafka laftigiisa qaar ka mid ihi inay qabeen in lagu bixin kala qiimo ugamana jeeda hadalka ah ciddii qabtay inaan ku cambaareynayo laakiin sida adiladu ku timid waa sidaa weeye waana sidaa islaamka mucdamkiisu ay qabaan imaamu nawowi sharxu muslim markii uu ka hadlahayana wuxuu leeyahay caamatul fuqahada mucdamkoodu waxay u tageen ama ha noqoto qolooyinkan asxaabulmadaahibta ah ama ha noqoto dadkii salafka ahaa waqtigooda wixii joogay oo xataa ay ka mid yihiin asxaabu rasuulillaahi laftigeedii waxyaalahay u tageen waxay ahayd inay zakada zakaatulfidriga la yidhaahdo inay ku bixiyaan qiimo inay ku bixiyaan ee waxaan ujeedaa inay ku bixiyaan cunno oo markaa wax qiimo la yidhaahdo aanay ku bixinin marka sidaa daraaddeed masaladaas waxaa loo baahan yahay in la iska jiro maanta waxaa aada iyo aada u badan dadka in loo fidyoodoo la yidhaahdo lacag ku bixiya iyadoo weliba yacni la oranahayo dadka loo muujinahayo macnaha qofka miskiinka ah lacagta ayaa u faa-iido badan lacagta haddii muxuu ahaa la siiyo wuxuu rabuu ku qabsanhayaa waxyaalo kaleu doorbidahayo ku samaynhayaa arrinta marka noocaas oo kale ahi waa arrin runtii iska caqliyan ah laakiin meesha waxaa taalla wuxuu mar haddii daliil cadi uu ku soo arooray oo sidaana asxaabtii ay yeeleen fuqahadiina badankoodii marka ay qaadeen waxaa la rabaa marka macnaha in la ilaaliyo ayaa la doonaya sababtoo ah inta badan ee ra'yi laguma saleeyo xagga diinta haddii ra'yi lagu saleeyo hadda ka hor waxaa dhacday saxaabiga muxuu ah la yidhaha cabdullaahi bin cumar ilaa waa ka nabiga kasoo aroortay nebigu marka yacni uu dawaafahayo inuu xajarka xajarul aswad la yidhaha nebigu inuu dhunkoon jiray inuu taaban jiray inuu ku sujuudi jiray marka nin baa inta arrintaa weydiiyo asagoo xoogaa arrintaa cuslaysanhaya buu waxyaalo weydiiyo wuxuu yidhi ara-ayta in zuuximtu ara-ayta kada wa kada bal ka waran buu yidhi haddii muxuu aha lay ciriiriyo hadday sidaa dhacdo xoogaa wuxuu qiil u raadinhayaa sunnadaa inuu ka leexdo markaasuu wuxuu yidhi ijcal ara-ayta bilyaman buu yidhi ra-aytu rasuulallahi yuqabilu lxajara buy ara-ayta yaman u dhig buu yidhi anigu ilaahay rasuulkiisii oo dhagaxa dhunkoonhayaan arkay buy marka waxaa loo baahan yahay haddee arrinta aada sheegayso qiimaa fiican iyo kidaa nebi maxamed waqtigiisiba qiima waa u jira lacagna waa ay jidhay midda kalena haddaad hadda xataa miskiin ugu roonaanayso wuxuuba wax badan maahan oo qofkiiba waxa laga bixinhayaa waa saac laakiin haddii la doonahayo masaakiin in wax la taro labadaba waa isku darsan karnaa sababtoo dadka hadda dabadaha hadda maanta aan joogno lacagaha ka dirhaya waxaa dhici kadha inay diraan $50 waxaa dhici kadha inay diraan $100 oo waxaa laga doonahayo oo zakaatulfidriga cunno ahaan markii la eego aysan ka badnayn $20 ama $10 marka labada waa isku oofsan kadhaayo qofka lacagta aad u dirayso ehelkaa waxaad tidhaahdaa cunadii iga bixi lacagta inteedaba inta kala qaado sidaasaad marka sunnadii nebigana aada ku oofisay qofkiina haddii lacag aad doonaysa lacag aad ku siiso uu ku helay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa arrintii zakaatulfidriga ku saabsanayd wallahu subxaanahu wa tacaala aclam